ganacsatada Soomaaliyeed ee dhawaan hantidooda looga boobay deegaanka Eastern ee duleedka magaalada Cape Town ee dalka South Africa ayaa ku laabtay goobahooda ganacsi xilli ay taagneed xiisadii halkaasi ka jirtay. Cabdulaahi Dasaar ayaa warkaan ka soo diray Cape Town. ganacsatada Soomaaliyeed ee dhawaan hantidoodii lagu boobay deegaanka Eastern ee duleedka magaalada Cape Town ayaa dib ugu laabtay goobahoodii ganacsi xilli ay weli taagan yihiin xiisadii halkaasi ka jiray. qaar ka mid ah ganacsatada ku laabatay goobahoodii ganacsi oo aynu la kulanay ayaa waxay nooga warrameen qasaarihii soo gaaray ganacsigooda iyo xaaladda ay haatan ku sugan yihiin waxa ay cabsi xoogan ka qabaan xilliga doorashooyinka madaxtinimo ay ka dhacayaan waddankani. magacay waa Xasan Cali Warsame. alxamdulillah waa soo noqonay ilaahay ma hadle qasaarihi dhaca laga warramay wax laga warrami karo ma ahan aqliga diiday laakiin alxamdulillah hada si nabad aan ku noqon wallahi soo arka cabsi laga ma waayo laakiin hadda waa soo noqon waa joognaa alxamdulillah waxaan ku darayaa inay nagu hayso in qulaas badan nagu hayo meesha wuxuu lahayo oo dal kudmaya oo dadka kula diran bulshada ku dhex joognay oo iska shaqaysaynay ama barabara inaan lagu soo qoshay faktab naga siiyeen waa naga cadahay waxaan joognaa halkan weeska bariga dhex marka waxa ila urubixiyaan joognaa ilaa Europa. Cabdi Alas Guure oo ka mid ah madaxda jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Cape Town ay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed uga warbixiyay dareenka uu ka qabo wixii ku dhacay Soomaalida tuulada Eastern. maanta socdaalka dhinacyo badan taabanay ku gelida xaaladda Soomaalida hantidooda faraha badan la ku weysay tuulada Eastern ee ka tirsan Cape Town halka xaafadda aan ku suganaa waa Namzama meesha dhibaatooyinka badan ka dhacay sida idin muuqato dukaamooyinka soo marnay ama dhinaca ku soo aragtay aad u jeedo dukaamo aad u camiray hanti fara badan kale maantana waxa yaala aad u jeedo taasoo ay tahay qasaaro baaxad leh ee soo gaaray dadka Soomaaliyeed ee ku nool South Africa qaasatan tuulada Eastern oo in ka badan 6 dukaan lagu boobay waad arkaysay dukaantii aad ogtahay sida jildiga iyo intaasoo waqti dhaqaale u baxshay maanta halka ay taagan tahay waa dhibaato laakiin Allah subhanahu wa ta'ala ay wax baxgiis ka ahaadeen waxaan maanta xaaladdu sida u jeedo way degan tahay walow mar walba dareen wali xaafadda sida arkaysa ay ka taagan tahay marka xiriirada community-ga iyo hadda dadaalada uma yara la wado laakiin insha Allah waxaan rajaynaynaa in dhibaatooyinkan xal loo Cabdulaahi Ibrahim Dasar warbaahinta qaranka Soomaaliya Cape Town Koonfur Afrika.